maadaama marka dalkeenu uu yahay dal dhalinyaro ah sida keliya oo dhibka dalku uga bixi karana ay tahay aqoon buug feerkanina uu isu soo dhoweeyey aqoontii iyo dhalinyaradii waxaa muuqata rajo aad u weyn oo dalkan u muuqata waxaa dhiirigelin ah in aanay dowladu soo abaabulin buug feerkan waxaa dhiirigelina inaan doonaro iyo dal shisheeye lacag laga raadin waxaa dhiirigelina inay dhalinyaro soomaaliyeed intay isxilqaameen isu keeneen kumanaan qof oo soomaaliyeed iyo dad aan soomaali ahayn oo ay ka wada dhexayso hal waxay wada ogol yihiin muhiimadda ay leedahay aqoonta muhiimaddu ay leedahay aqoonta sidaas daraaddeed waxaan aniga iyo madaxda qaranka inteena kalaba idinku dhiirigelinayaa inay tallaabadani tahay tallaabo wax ku oran tallaabo wax ka taraysa dowladnimada tallaabo wax ka taraysa dadnimada inaad noo qortaan buugag badan oo noo sheegtaa sida ay tahay dalkan inaan dhib kuga saarno inaad noo qortaan buugag badan oo ay tahay sida dalkan dib u heshiisiin looga samayn lahaa